saacadihii la soo dhaafay waxaa baraha bulshada Soomaalida iyo caalamkaba aad loogu hadalhayaa gabar sodogeed ama aabbaha ninka qabay kufsatay 7 jeer intaasi kadibna uu u dhintay odayga da'da ah kufsiga loo geystay waa marxalad adag oo ceeb fara badan xambaarsan ha yeeshee waxa uu ciwaankan ruuxay baraha bulshada waqtiyadii dhawaa haddii aad doonayso inaad wax badan ka ogaato siday wax u dhaceen sababta keentay in odagu uu dhinto ma dabaq ayaa laga soo tuuray sababta marwada la qabo ku qasabtay in 7 jeer ay kufsato ninka qabay aabihiis oo ay guri ku wada noolaayeen sida lagu helay cadeymaha iyo siro badan oo ku saabsan arrintan fadeexadda ah ee wargeysada caalamka iyo qorayaan saacadihii la soo dhaafay marka la daahfuro ugu horreyn sheekada ciwaankan dhimashada odayga 80 jirka ah iyo wixii ku dhacay ayaa loo arkayay inay yihiin kiis dhimasho ah oo dabiici ah balse fikraddaasi ma aysan ahayn mid saxan xilligan la joogo waxaa la xaqiijiyay in odayga meydkiisa laga helay guri dabaq ah oo dhaca magaalada cusub ee Arab Town iyadoo marxaladda keentay dhimashadiisa aysan ahayn qof u dhintay wadna qaba dartiis si dabiici ah laakiin bixinta 7 jeer oo isxigta dhacaanada jirka waqtiga galmada iyo daal fara badan ayaa ku qasbay sida ay warbixinadu sheegayaan in odagu uu dhinto kadib markii wadnuhu uu si kadisa shaqada u joojiyay ama uu istaagay lama oga bilowga sheekada inay ahayd isfahan uma sabadna laakiin marka laga cabir qaato wada qaadashada dareenkaasi xadgudubka ah waxa ay noqotay wax laga wada xumaado dhanka kalena soo gabagabaysay cimriga Gulaam Xasaan oo 80 jir ahaa gabadhan dambiga loo haysto ayaa sida la tilmaamay u isticmaasho odayga xeeladaheeda qaaska ah iyo awoodeeda qarsoon si ay kaga taqalusto duqa sodogu u ahaa iyadu waxaa loo garan ogyahay Naaheed oo ahayd marwo ama xaas degan magaalada Arab Town xilligan waxaa loo haystaa mas'uuliyadda falkan foosha xun ee dilka sodogeeda gabadha kufsiga geysatay waa xaaska Bilaal Xasan oo ah duqa la kufsaday wiilkiisa kaasi oo booliska u sheegay in xaaskiisa uu uga tagay aabihiisa oo da ahaa si ay u daryeesho taasi oo u fududeysay booliska inay helaan cadeymaha in gabadhan ay ahayd qofkii ugu dambeeyay ee la jooga duqa kufsiga u dhintay kaasi oo baaritaano la sameeyay lagu ogaaday in dhimashadiisa ay ka dambayso kufsi xeel dheeraaday sidoo ku xusanka hadalka sheekadan iyo kiiskan waalida ah maalinkii 9aad ee bisha Oktoobar ee sanadkan Bilaal oo ah dhibanaha aabihiisa la dilay waxa uu ka baxay gurigiisa si uu u gaaro shaqada isagoo xaaskiisa iyo aabihiis ku dhaafay guriga si ay u wada joogaan sidoo uu sheegay Bilaal markii uu arkay meydka aabihiisa waxa uu qiray in gacan ku dhiglaha uusan muujin wax calaamado ah Bilaal wuxuu isla markiiba ku wargeliyay booliska una sheegay in aabihiisa si caadi ah uu caafimaad qabay ka hor inta uusan guriga ka bixin maalinkaasi baaritaan ay biliisku sameeyeen kadib waxaa la ogaaday in marwada la yiraahdo Naaheed ay goobjoog ka ahayd faldambiyeedka ku dhacay sodogeeda xilli dhab ahaantii ay tahay dambiilaha xaaladdan oo dhan iyadoo sababta cadeymahana lagu ogaaday baaritaano lagu sameeyay isu tagga jinsiga ah iyo dhacaanada si loo xaqiijiyo wax walba warbixintu waxay tilmaamaysaa sida gabadhan marwada ah ay kaga dambeysay falka kufsiga ah iyo dilka raadka shahwada la baaray ayaa farta ku fiiqay magaca gabadhan taasi oo ceeb weyn ku noqonaysa qoyska gabadha iyo ninka qabay kadib baaritaanada Bilaal xaaskiisa oo la yiraahdo Naaheed oo ah midda falka geysatay waxaa la dhigay xabsiga waxaana lagu qasbay inay daadiso xaqiiqada dhabta ah in odayga ay u kala kiciso 7 jeer oo isxigta isagoo ugu aadan aabe maadaama ninka qaba uu aabbo yahay waxaana ay qirtaynaysan u muuqan wax ka soo hara waxa ay doonaysay iyadoo sheegtay inay ku qasabtay sodogeeda xanuunsan in galmo uu sameeyo 7 jeer oo isku xigta iyadoo qiil uga dhigaysay in ninka qaba uusan qancin karin sida lagu qoray warsidaha republicofpass.com marka dhanka kale la eego waxay gabadhan tooshka ku ifisay inaysan xaaladdan dhacday aysan ku koobnayn kaliya maalinta la soo qabtay amaba uu odagu dhintay laakiin labadii bil ee la soo dhaafay ay odagu ku qasbi jirtay inuu la seexdo ama ay kufsan jirtay si taasi la midan ay ku qasbi jirtay iyadoo garaacaysa inuusan hadlin oo uu aamusnaado arrinta sidoo kale qosolka leh ee fadeexadda sii xoojisa ayaa noqotay in gabadha faldambiyeedkan geysatay ee booliska u sheegtay inaysan rabin inay iska disho odayga sodogeeda ah oo ay jeclaan lahayd in mar walba uu guriga u dhex joogo laakiin wakhtigan ay geeridiisu sababtay shil burburiyo wax walba caddeeyana waxyaabaha dhacay gabadhan hadda waxay ku jirtaa gacanta booliska waxa ay sugaysaa maxkamadeynteeda eegista dambiyadeeda ayaa sida sharciga ah nooca darajada koowaad kufsi iyo dil iyadoo wakhtigan xabsiga leynta ku cabaysa daawada haddii aad muuqaalkan daawatay sidee ayaad u aragtaa arrintan fadeexadda ah ee marka dhinaca la eegana qosolka badan aragtidaada ku soo qor qaybta hoose ee commentiga
warbixintan waxaan u soo gudbiyey maadaama ay jiraan dad badan oo raba inay wax badan ka ogaadaan gabadhan kufsatay 7 jeer sodogeed ama ninka iyada qaba aabihii dhalay taasi oo runtii ruxday baraha xiriirka bulshada dhinaca internetka magacaygu waa Shaafici Maxamuud Nuur Shaafiinho inaad muuqaalkan like saarto oo aad share gareyso waxay naga caawin doontaa inaan helno saaxiibo wanaagsan sida adiga oo kale waad ku mahadsan tahay la jaanqaadkaaga